leeyahay waa dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqada badnaa ee ugu nicmada badnaa ayaa la keenayaa maalinka qiyaamaha laakiin isagoo ahlun naar ah hal mar kaliya oo naarta la geliyo laga soo celiyay ayuu nicmadii adduunka taalay oo dhan ku halmaamay waxa kale oo lala iman buu nabigu dadka adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaaya ugu xaqiisa ugu imtixaanka badnaa ee adduunyada dusheeda dadka lagu imtixaamay kii ugu nolol liitay ugu nolol hooseeyay kaasa banka qiyaama la keenay laakiin isagoo ahlal janna hal mar kaliya jannada la gelin oo laga soo celin oo la oran doona intaad adduunyada ku noolayd dhib iyo rafaad iyo mashaakil ma la kulantay hal mar intuu isaguna ilaahay ku dhaartay ayuu leeyahay maya ilaahay baa ku dhaartay wax dhibaato ma arag buu leeyahay anigu adduunyada nicmadeedii oo dhan kii la siiyay ee dadka adduunka soo maray ugu nicmad badnaa maadaama gaalnimo adduunyada uu ku noolaa oo gaalnimana ku dhintay hal mar kaliya oo naarta la tusoo la geliyay ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay dadka adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaana oo islaamnimo iyo iimaan iyo tawxiid la dhintayna hal mar kaliya oo jannadii la tusay ama jannada intuu la dhex joojiyay laga soo celiyay ayuu mashaakilkii adduunka ku soo maro dhan ku halmaamay marka islaamnimada ilaahay baa bixiya ilaahay baa islaamnimada inoo qadaray waa inaan diinta islaamka aan ilaahay ugu mahadino weeyaan oo istiqaamo ku yeelana istiqaamo diintu waxay u baahan tahay in lagu sugnaado istiqaamadana quraanka ilaahay meelo fara badan baa ilaahay kaga hadlay oo nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam amar baa lagu siiyo la yiri fastaqim kama umirta waman taaba ma'aka adiga Muhammadow diinta ilaahay ku doortay islaamnimada ilaahay ku siiyay ee shaqana lagaaga dhigay ku toosnow baa nabiga lagu yiri oo ku toosnow oo ku qumanow adiga iyo cidii ku rumaysay ku raacdayba waxa la inaga rabaa diinta inaad ku sugnaataan oo istiqaamo ku yeelataan nabigeena alayhi salatu wasalaam nimba u yimid oo yiri qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka ya rasuul allah diinta islaamka qawl iga dheh oo meel iga taabo meeshaas oo adiga dabada cid dambana aanan weydiinin markaa buu nabigu yiri qul waxa tirada aamantu billahi ilaahay baan aaminayo ilaahay baan rumeeyay kama huwa bi asmaa'ihi wa sifatihi jalla wa ala thumma istaqim dana ilaahay markaad rumaysid ee diinta islaamkana aad rumaysid ee diin u qaadatid ku toosnow oo ku sugnow baa lagu yiri laana adduunyadani waa daar dadka lagu imtixaamayo sidee maalmuhu isku bedelayaan ayaa bini aadankan xaalad waxa la soo darsaayay kala nuucnuuca sida maalinka iyo habeenku isku daba socdaan ee jiilaalka iyo guguna isku daba socdaan ee abaarta iyo barwaaqaduna isku daba socdaan ee habeenka iyo maalmuhuna isku daba socdaan ayaa bini aadankan imtixaanka la soo darsaayana waa isdaba soconaya isaguna ma kala go'ayo بالكلية هل أيا بني آدم كحالات كلية كودة جري كرين بشوح الله جاي وتضبط عشاه الرسال إن فرح سناتد تضبط الدحانة مرة ثانية وحكام مرقسية كل ما نض مرقوتي تضبط كل حكتين إن العافمال قبتد تضبط كدمر وح الله جاي بينه حنون كقول دعاء حمد يلا فقرا على دعوه وحالات nolosha dhan baa caynkaas waxa laga yaabaa sanadkan inaad ahaatid sabool faqiira kal dambana waxa laga yaabaa inaad xoogaha jeebadaad ku haysatid adduunyo yar sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaatid nin dhalinyaro ah kal dambana waxa laga yaabaa inaad noqoto nin xaslay oo reer leh sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaatid nin caafimaad qabo boodayo ordaya kal dambana waxa laga yaabaa inay ku qoran tahay inaad jiifto sariirta dul taalo sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaato kuwa nool adduunka dusheeda dulta tallaabsada kal dambana waxa laga yaabaa inay ku qoran tahay kuwa dhimanaya qabriga ku jira inaad ka mid noqoto wama tadri nafsun madha taksibu gadan wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir baritoola waxa la kula soo darsaya adigu ma ogid meesha qabrigaagu noqonayna adigu ma taqaanid ilaahay waa alim waxa maanta adduunyada ka dhacayna isaga aqoon u leh waa khabiir weeyaano waxa wali adduunka aan ka dhicin ku soo socdana ka kaliya ogay yaqaan waa ilaahay tabaaraka wa taala barka daartan waa inaad ogaataa waa daar al-ikhtibaar
ardayga iskuulka markuu 9 bilood uu dhigto kalaaska bisha 9aad wuxuu fadhiisanayaa waa ikhtibaar imtixaanka maxaa looga qaadayaa waxa la kala saarayaa kee dadaalayay kee baana aan dadaalayn midna marka uu baasaya kee baasaya marka kii dadaalaya tacliinta u soo jeeday ee nidaamka madrasada iyo iskuulka ilaalinaya waxbarashada ku dadaalayay imtixaanka markuu u soo fadhiista uu baasaya kii kale suuqa iska joogay ciyaarayayna kaasina uu ku dhacaya marka ardayga fariidka ee maaragtay wanaaga badan leh ee waxbarashada ku fiican ee mutqinka iyo ardayga baliidka marka halka lagu kala saaro imtixaanka adduunka dusheedana wax imtixaanka ilaahay xaqiisa uu nooga keenaya wax kala maaha walayna kala reebaya marka aya iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta ku sugnaanayo istiqaamo yeelanaya ayay si dabayluhu qaadayaan lidaalika culimadu waxay yiraahdaan xagga istiqaamada markay ka hadlayaana afartan aayadood ee suuratul ghaashiyah ugu dambaysa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir inma anta mudhakkir afarta aayadood bay culimadu ku leeyihiin waa sifaad laga doonayo qofka muuminka sifada quraanka lagu sheegay haddii xayawaan lagu sheegay haddii buur lagu sheegay haddii sama lagu sheegay maqsuudku samada maaha maqsuudka waxa loo jeedaa ayuha albashar baa lagu leeyahay afalaa yanduruuna ila al-ibli kayfa khuliqat geela may fiiriyaana baa ilaahay yidhi oo sidaan u abuurnay may eegaane ku cibro qaataana sifada uu geelu leeyahay waa maxay waa tawaaduc dhul isdhig geelu ma kibir male geelu maalmo dhanbaad biyaha ka ilaalinaysaa oo kula qadaya adigu biyo la'aan ma noolaan karaysid laakiin isagoo 15 maalmood waxa laga yaabaa geelu bilaa biyo inuu kula socdo oo ku adeeco waliba adiga ma aragtaan amarkaagana uu qaato awr dhan baad arkaysaa ayu ilmo yar hoggaanka intuu qabto buu fadhiisanaya oo fadhiisan oo kicinaya oo kacaya rarku saaraya oo qaadaya وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم مركز عليسك أي نقاد سابا إلى حي عليسك ريرها كجوريا وسفينة الصحراء بعربت إلى دنجيلا واحد بني آدم كو أي سميان أردن سنعد إلهي أردق من مايان وحنا دونك بني آدم كو أي سميان بلا بيه مسعون كران بلا بترول مسعون كران بلا سواقنا ما سocon karaan laakiin awrka adiga fuulaya deedna uu ku kaxayn baabuurka adiga weecin laakiin awrku jarka isaga ka weecan dameerka maada weecin mise isaga weecanaya markaas la caayo leeyahay or dameerkan cadhoon maayo ka tagi maayo oo ku khidmaynaya waad soo kaxaynaysaa isagoo imika dhaankii ka yimid oo laga keenay dixdii oo qarbidadii laga dhaadhiciyay baa haddana qarbidka la saaraya waan daalay mu oranaya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun ilahi ba ku sakhiri tabaraka wa ta'ala